dheeraad nin haysto aqalkiisu dhalayahay nabad iyo ku dhaqankeed hadduu tuuriyo dhaafsaday miyaankiisa dhagax karin maan dhadhaabta xaabsado min dhukani hadduu jiro amba maan isdhagatiro marka laga hadlo jaamacad dadka badankood waxay ka fikiraan fasallo imtixaano iyo buugaag laakiin hal isbuuc sanadkii Simad University waxay isu beddeshaa meel lagu xuso laguna soo bandhigo dhaqanka Soomaaliyeed muhiimadda ay leedahay isbuucan dhaqanka haddaan aan ardayda jaamacadda Simad waxa waa in aan ku faanno hidaheena iyo dhaqankeena maalmo iyo toddobaadyo ka hor ayay ardaydu bilaabaan qorsheynta iyo diyaarinta bandhigyadooda qaar waxay diyaariyaan suugaan qaar waxay soo bandhigaan cunto dhaqameed halka kuwa kale ay soo nooleeyaan ciyaarihii iyo dhaqamadii ay awoowayaashoodu ku barbaareen sanadkii isbuucan oo kale hal mar ayaa qabataa jaamacadda Simad si aan u weyneyno hidaha leena dhaqankeena sababta u weyneyna kan wax kale tan maahan as Soomaali ahaan in maxaa la dhahaa dadyo kale taa ugu dibanahay inaan sheegno dhaqamada ugu kala duwanahay ku kala bandhigno waxaa jira tartamo badan oo soo wada bandhiga jiro arday qaar shakhsi loo kala tartamo kuliyad loo kala tartamo iyo dhammaan dadka kale to maxaa la dhahaa ay sheegay Soomaali oo kale diigiyaan meesha ku leeyihiin degmo waxa jaamacadda Simad dhigtay waxaan dhiganinbo mar kale tay mar saddexaad waxa leeyahay dhaqankiina ha lagu faano dhaqankiina weyneeya wax walba wax ku raana waa dhaqankeena wax walba waxay leeyihiin hal ujeedo in dhaqanka Soomaaliyeed la xafido oo jiilasha cusub loo gudbiyo isbuucii dhaqanka jaamacadda Simad wax weyn oo iga dhigan yahay khaasatan wuxuu dib ii soo xasuusinayaa quruxda dhaqanka Soomaalinimada wax badan waxa jeclaa dadka hore maxaa ugu mid noqonaysay walaahi dhaqanka hore waxyaabo badan aad ugu jeclahay laakiin waxa koow ka ah sida dumarka loo aamini jiray mas'uuliyadda guriga mas'uuliyadda wax walba loo saari jiray waxaas zaid ugu jeclaa dhaqanka waxa aaminsanahay dumarka hore waxa waay in zaid loo qiimeey jiray mas'uuliyad qurux badan loo dhiibi jiray waa jeclahay wali waxa jeclahay inaan subaxii ka soo kaco qol mudil ah sidoo kale inaan ligu aamin inaan ari raaco oo meel fog keligay aado ariga aan soo celiyo gurigayga aan maareesto waxyaabo badan hadda rajaynayo dadka hore hadda ka tirsanaa lahay way ku dhacayda dhahay jiro waxa isugu yimid arday ka kala yimid gobollo kala duwan mid kasta wuxuu la yimid sheeko dhaqan iyo idbaar ah magacaygu waa Umar Abdullaahi Cabdi waxaan ahay madaxweynaha xukuumadda ardayda jaamacadda Simad ee Xajsi maanta waa maalin kale waa maalintii u dambeysay ee toddobaadka dhaqanka jaamacadda Simad toddobaadka dhaqanka jaamacadda Simad waxa uu ka mid yahay dhacdooyinka sanadlaha ah ee jaamacaddu qabato kaas oo loogu talagalo in kor loogu qaado dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed kaas oo ardayda jaamacadda Simad lagu baro dhaqankooda suuban ee Soomaaliyeed jaamacadda Simad inta toddobaadka dhaqanka uu ka socdo gudaheeda waxa lagu soo bandhigaa ciyaar dhaqameedyo aad u kala duwan oo ay ka mid yihiin suugaanta qaybaheeda kala duwan buraanburka gabayga iyo ciyaar dhaqameedyo aad u qurux badan oo ardayda jaamacadda Simad ay soo bandhigaan toddobaadka dhaqanka jaamacadda Simad waxa uu ka mid yahay dadaalada jaamacadda ay geliso in kor loo qaado dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed toddobaadkan waxaad ka dheehan kartaa xamaasadiisa iyo xiisaha uu wato dadka ka soo qaybgalayo imaanayo in ay daawadaan tartamada kala duwan ee toddobaadkan gudihiisa la qabto jaamacadda Simad kaliya ma soo saarto arday wax bartay waxay soo saartaa arday ka dhameystiran dhinac walba kaas oo waxbarashadii uu bartay ee u dheer tahay in uu wax ka yaqaano dhaqankiisa sidoo kale waxay jaamacadda juhdi iyo waqti gelisaa in toddobaadkan ay ardayda ku bartaan dhaqankooda suuban sidaas darteed maanta waxaan joognaa maalinta ugu dambeysay waxaan soo daawanay dhaqamo iyo maaragtay ciyaar dhaqameedyo aad u qurux badan tartamo oo ardayda jaamacadda Simad qaybaheeda kala duwan ay soo bandhigayeen waxaan rajaynayaa hadduu Ilaahay yiraahdo sanadkan ka xiga inuu noqdo mid kan ka sii xamaasad badan halka kan uu gaarayna meel ka fiican inuu gaaro hadduu Ilaahay yiraahdo dhaqanka hore wax yar waa laga tagtagooyaa laakiin waxa aaminsanahay mar walba hadii sidaan camal dadka la soo xasuusiyo dhaqanka
labada dhaqan way isdhex galayaan wax san isbarbar dhigi kara noqonayaan saas aaminsanahay waxaa fariin u dirayaa dhaqankeena waa astaanteena waa aqoonsigeena waa waxa biri adduunka nagu matali doono ilaalino dhaqankeena intaas ugu tali lahaa dadka qaar waxay u yimaadeen inay wax bartaan qaarna inay madadaalo helaan laakiin dhammaantood waxay wadaagaan hal dareen kaas oo ah ku faanista dhaqankooda dhaqanku ma aan wax lagu arko buugaagta oo keliya waa sheekooyin aan maqalnay annagoo yaryar waa luuqadda aan ku hadalno waa heesaha ciyaaraha iyo caadooyinka inmadeeya simad cultural week wuxuu xasuusinayaa dhallinyarada in horumarka iyo casriyeenta aysan ka dhigneen in la iloobo halkii laga yimid balse ay ka dhigan tahay in la ilaaliyo wixii qiimaha lahaa iyadoo la wajahayo mustaqbalka aqal